السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kanaalku waa horumariye aniguna waxaan nahay Ayuub Cabdikariin. muuqaalkayna maanta wuxuu ku saabsiisan yahay dalka Algeria. dalka Algeria waa dal madax bannaan, waxa uu xad la wadaagaa dhowr dal. dhinaca waqooyi waxa uu xad kala wadaagaa badda Mediterranean-ka, dhinaca waqooyi bari dalka Tunisia, dhinaca galbeed dalka Morocco. dhanka koonfur galbeedka Saxaraha, Mauritania iyo Mali ilaa koonfur bari Niger. dhanka bari oo uu xad kala wadaagaa dalka Liibiya. Algeria waxaa gumaysan jiray dalka Faransiiska, waxa ay madax bannaanidoodii qaateen Luulyo 3, 1962. madaxweynihii ugu horeeyey ee dalka Algeria waxa uu ahaa Ahmed Ben Bella, waxaase inqilaabay Hawaari Mabadiana sanadkii 1965. caasimada dalka Algeria waxaa la yiraahdaa Algiers. baaxadda dhulka Algeria waxaa lagu qiyaasaa 2,381,741 kiiloomitir iskuweeran. tirkoob la sameeyey 2018 waxaa lagu ogaaday in dadka ku nool dalka Algeria ay tiradoodu dhan tahay 42,200,000 oo qof. luuqadaha rasmiga ah ee dalka Algeria waa Carabi iyo Barbar. luuqadaha kale ee laga isticmaalo waxaa ka mid ah luuqadda Faransiiska. Algeria waa dal Muslim Sunni ah. lacagta laga isticmaalo dalka Algeria waxaa la yiraahdaa diinaar. lafdhabarta dhaqaalaha Algeria waa wax soo saarka batroolka, waxa ay xubin ka tahay ururka OPEC tan iyo 1969. sidaas oo kale waxa ay xubin ka tahay ururo ay ka mid yihiin ururka jaamacadda carabta, ururka iskaashiga islaamka, midowga Afrika iyo ururka qaramada midoobay.